aynu soo koobno nuxurka gunaanadka shirkii Jabuuti iyo waxa laga doonayay gudiyada farsamo ee labada dhinac nuxurka khudbadaha madaxda labada dhinac ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo khudbadaha waliba madaxda geeska iyo beesha caalamka khaasatan dawladda Mareykanka ayaa waxa si cad looga dheehanaya isla qaadashada masiirka ummadda iyo ka talinta aayaha dambe ee midnimo safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto wuxuu dhankiisa si qoto dheer u sharaxay geesta maanta dunida u guurtay oo ay ka dheer tahay kala qoqobni iyo gobolaysi inba gaar u xidhan tahay waxaan uu tilmaamay in wax kasta oo lagu suurto gelinayo intaasi meesha ka baxdo ay lama huraan tahay dhanka kale khudbadii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo dadku ku tilmaameen inay ahayd midii ugu adkayd khudbadaha la xidhiidhay ujeedka rasmiga ah ee shirka loo qabto. The Horn of Africa has experienced prolonged periods of bad governance and failed leadership. We are too familiar with the destruction, displacement, and the decades of economic backwardness generated by senseless conflict. We need to change course and start a new era. We need to cultivate hope and build a better future for our people. waxa uu ku dheeraaday mugdigii colaadihii kala qoqobnida faqriga iyo korriin la'aanta muddada badan geeska daashatay waxaanu xusay in maanta loo baahan yahay in la bedelo lagana guuro godka foosha ee muddada badan lagu soo jiray halka waxa uu uga sii gudbay sida Soomaalidu ay u tahay tad karti badan maskax furan oo hal abuur leh waxaanu xusay inay maanta u baahan yihiin hogaamin ku dhac iyo dhiiranaan leh sibuu yiri mustaqbalka 30 sanadood ee la gudagalay ay u samata bixiyaan shacabkooda waxa kaloo Dr. Abiy Ahmed oo la hadlaya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland uu tilmaamay in looga baahan yahay kamida dhalinta isdhexgalka iyo wadajirka labada dhinac sibuu yiri shacabku uu uga baxo faqriga saboolnimada iyo dib u dhaca ragaadiye guddi miisaan leh ayaa labada dhinacba maanta saareen waxaana khudbadaha labada madaxweyne ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ee maanta ay ku cadeeyeen geesta loo socdo iyagoo si toosa u dul istaagay in waxa laga talinaya uu yahay mustaqbalka shacabka Soomaaliyeed iyo wixii dan u ah aan ku horeyno khudbada madaxweyne Biixi anoo tilmaantayda waan idhi halka war hal wada heshiyo war wax la isla afkarto waa dhamayn maanta waxa la soo eegaya guddiga farsamo ee arrin ku hadhay inay keento technical madaxweyne Farmaajo oo taasi si adkaynaya ayaa isna dul istaagay arrimaha masiiriga iyo maqsadka guddidan ay kalsoonida buuxda u wada siiyeen shirkaani insha Allah waxaan rajaynayaa inuu noogu dhamaado guul oo aan uga farxino shacabkeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa yeelay waxaan ka hadlaynaa sidii loo walaaloobi lahaa wax loo wada qabsan lahaa si dhab ah loo wada hadli lahaa ummadda Soomaaliyeed annagoo ah ummad aad u aqli badan u xigmad badan u taariikh fiican wax walba wadaagna laakiin caalamka waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa wax kale ma aha waa go'aanka madaxda ay qaadatay oo taariikhda galaya hadda iyo mustaqbalkaba marka in si geesinimo leh loo wajaho xaqiiqda dhabta ah loo wada hadlo marka laga yimaado ujeedka culayskii ugu badnaa beesha caalamku u saartay shirka oo noqonaya markii uu horeysay ee gamcaha la isu soo qabsado xalinta wax kasta oo lagu kala tagi karo ama la kala taagnaa haddana waxaan iyana caalamka iyo labada dhinacba waa dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland gudaheeda ay yaqiinsan yihiin inaan gees laga maraajirin arrimaha gudaha Somaliland ka jira ee qaybta ka tahay dadweynaha loogu yeedho silent majority aqlabiyada aamusan ee shacabka midnimo doonka ah arrimahaasi oo dhan iyo kuwa aynu soo sheegnayba waxay qayb ka yihiin sababaha qorshayaasha shirkaasi lagaga wada hadlayo u diiday in wax lagaga soo daro arrimaha gooni goosadka ee qayb ka mid ah Somaliland ay aaminsan yihiin